kula wanaagsan daawadayaal halkan waa Goobjoog TV ku soo dhawaada warka kooban qodobada aan idiin hayno qayb waxa ka ah meeyad horle ayaa laga soo saaray maqaayada Pizza ee degmada Hodan halkaas oo weerar ay ku qaadeen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab inta la xaqiijiyay 23 qof ayaa ku dhimatay weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen maqaaxida Bosch Streets iyo sidoo kale Pizza ee gobolka Banaadir dadka dhintay waxay ahaayeen rayid waxaana goobta lagu arkayay ilaa iyo 6 gabadhood oo meel qura ku wada dhintay dadka ayaa u badnaa kuwa u fiiti tagay halka weerarka lagu qaaday ee ugu dambeyn ay ku geeriyoodeen wariye ka tirsan Goobjoog oo goobta tagay ayaa sheegaya in weerarkaas sidoo kale ay ku dhinteen dad ajaanib ah maamulka isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay dad qaba dhaawacyo culus oo la gaarsiiyay isbitaalkaasi agaasimaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in 17 qof oo qaba dhaawacyo fudud iyo kuwa culus la keenay isbitaalka xalay fiidkii ilaa hadda wali waa socotaa waxaan isleeyahay laba kale dhaawac ah hadda la keenay waqtigan aan joogo meedadkana waa la keenay hayaa ilaa xalay marka haddii aan ku darno labadan waxa waaye 17 waaye dhaawacyada la keenay isbitaalka oo nasiib waxa waaye yani 8 kamid ay ahaayeen dhaawacyo fudud 7 kamidana ay dhaawacyadooda ahaayeen dhaawacyo qaliimo u baahnay oo howlgalla aan ka sameynay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in dagaal uu ku dhex maray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe iska horimaadka ayaa dhacay wax yar kadib markii qarax miino meel u dhow magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe lagu eegtay ciidan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya warar horudhaca oo la helayo ayaa sheegaya in iska horimaadka labada dhinac dhex maray ay waxyeelo ka dhalatay balse saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya wali wax faahfaahin kama aysan bixin dagaalka ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in uu xoog ku bixin doono joojinta dagaal beeleed ka soo cusboonaaday gobolada Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Galgaduud mas'uuliyiin kamid ah maamulkaas ayaa sheegay in waqtigan la joogo uusan ahayn xilli colaadeed muhiimna ay tahay in labada maamul ee Hiiraan iyo Ahlu Sunna ay ku wada dadaalaan wax ka qabashada dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday gobolada Hiiraan iyo Galgaduud gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay ka shaqeyn doonaan wax ka qabashada dhibaatada la xiriirta colaadda ee ka taagan gobolka Hiiraan warkii koobnaa oo aad kala socoteen Goobjoog TV waa naga intaa